kulanti waxaan asxaabay meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka Arrimaha Fanka. Halkaan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa filimka tiyaatarada Hindiya saaran iyo ganacsiga ay sameeyeen. Waxaana ku bilaabi doonaa filimka Dibadda Tiray. Filimkan ayaa toddobaadkiisa koowaad keenay lacag gaarayaan 114 karoor, waana lacag aad u yar misna filimkan marnaba laga filayn. hase yeeshee box office mar walba damaanad ma lahan, inkastoo filimkan caqabado iyo mashaakil isbiirsaday soo wajaheen, haddana sidaas oo ay tahay filimkan sheeko aan sidii laga filayay muusan noqonin oo ay jirto directorka sida uu sameeyay aad loo dhaliilay. Filimkan weli waxa uu haystaa Janis uu lacago normal ama fiican ku sameyn karo, inkastoo filim weyn tiyaatarada kala wareegay, haddana Dibadda Tiray waxa uu haystaa Janis uu weli isku celceli karo. Filimkan ayaa toddobaadkiisa koowaad lacaga uu keenay gaarayaan qiyaasaan 113.75 karoor, waana arrin fiican marka loo fiiriyo filimkan inay soo wajahaan caqabado waaweyn. Jimcadiisa koowaad waxa uu keenay 22.50 karoor, halka Sabtidiisa koowaad uu keenay 22 karoor, Axadda koowaad waxa uu keenay 28.50 karoor, Isniintiisana waxa uu keenay 9.25 karoor, Talaado waxa uu keenay 9.25 karoor, Arbaco waxa uu keenay 15.50 karoor, halka Khamiis uu keenay 6.25 karoor. Wadarta guud waa 113.75 karoor. Dhinaca kale, filimka Mardani 2 ayaa isna ganacsi fiican sameeyay muddo 2 toddobaad, maadaama toddobaadkiisa labaad uu soo xareeyay lacag gaarayaan 12 karoor, halka toddobaadkiisa koowaad uu soo xareeyay 28.1 karoor. Filimkan waxa uu lacag fiican ka soo xareeyay galbeedka Bengal, asigoo ka soo xareeyay 3.50 karoor muddo 2 toddobaad gudahooda, taasi oo durba ka sareysa qaar ka mid ah filimada waaweyn ee sanadkan soo baxay. Sidoo kale magaalada Mumbai ayuu ganacsi fiican ka sameeyay, waxa uuna soo xareeyay 14 karoor muddo 2 toddobaad gudahooda. Dhinaca kale, filimka Jumanji ayaa isna sameeyay ganacsi fiican maadaama uu soo xareeyay 48 karoor qiyaasaan muddo 2 toddobaad gudahooda, taasi oo ka dhigan in uu ku dhow yahay in uu garaaco filimkan qaybtiisa hore. Filimkan isbuuciisa koowaad waxa uu soo xareeyay 33.8 karoor, halka isbuuciisa labaad uu keenay 14 karoor. Wadarta guud oo filimkan soo xareeyay 2 toddobaad waa 47.98 karoor. Dhinaca kale, Saake oo Jimco ahayd taariikhduna ay ku beegan tahay 27 Diseembar 2019, waxaa tiyaatarada Hindiya laga saaray labada filim ee kala ah Good News iyo Dibadda Tiray. Dibadda Tiray waa toddobaadkiisa labaad, halka Good News uu yahay toddobaadkiisa koowaad. Good News ayaa helay tiyaatarada ugu badan, waliba asigoo filimkan helay mid ka mid ah tiyaatarada ugu badneed ee sanadkan filim la saaray. Xitaa waxa uu ka tiyaatar badan yahay filimka Houseful 4 oo bishii Oktoobar tiyaatarada Hindiya la saaray, kaasoo helay 3,800 oo tiyaatar, halka Good News oo helay 3,800 ilaa 3,900 oo tiyaataradood. Waa arrin wanaagsan filimkan, taasoo ay ka caawin karto in toddobaadkiisa koowaad lacago fiican sameeyo ama ganacsi fiican sameeyo. Dhanka kale, Dibadda Tiray ayaa isna helay 1,600 oo tiyaataradood, taasoo qudhiisa isna ka caawin doonto in toddobaadkiisa labaad ganacsi fiican sameyn karo.